telefishinka TRT World la yiraahdo ee Turkiga ku yaala ayaa baahiyay muuqaalo laga duubay oo ay duubeen kaamirooyin ku xirnaa banaanka qonsuliyadda waxaa ka muuqanaya markii wariyaha uu galay safaaradda ama qonsuliyadda inay ka daba galeen rag dhar madow xiran oo Sacuudiyaan ah oo ka tirsan ciidamada amniga ee Sacuudiga wariyahan waxaa la waayay labadii bishan markii uu gudaha u galay qonsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul halkaas oo ka doontay waraaqado guur saraakiisha ammaanka ee wadanka Turkiga waxay aaminsan yihiin in wariyahaasi la dilay Jamaal magaciisa la yiraahdaa Jamaal Khashoggi waxaana ahaa wariye aad u dhaliila dowladda Sacuudiga ee boqortooyada jirta wargeyska Sabaax la yiraahdo oo ka soo baxa wadankaasi ee Turkiga ayaa soo qoray magacyada 15 xubnood oo ka tirsan xubnaha sirdoonka wadanka Sacuudiga kuwaas oo la leeyahay way ku lug lahaayeen wariyahaas markii la waayay laakiin qiyaanada ay sameeyeen waxay tahay waxay xirnaayeen dhar madow waliba waxay sameeyeen baa la leeyahay markii ay dilka geysteen dhowr saacadood ama 4 saacadood kadib markii wariyaha la waayay ayaa waxa ay gaari madow ka qaateen banaanka qonsuliyadda waxaana u kala duuleen dhowr wadan oo kala duwan dowladaha caalamka ayaa si gaar ah arrintan uga hadlay tusaale ahaan xukuumadda Britain oo kale waxay leedahay waxaan u baahanahay in jawaab cad laga bixiyo xukuumadda Sacuudiga ay ka bixiso eedda la xiriirtay wariyahaasi ay dileen wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Adil Al-Jubayrina wuxuu leeyahay waxa wararka ah ee soo baxaya ee sheegaya in wariyahaasi la dilay waa been abuur waxaa sidoo kale warkaas aad u beeniyay safiirka Sacuudiga u jooga wadanka Turkiga oo la dhashay dhaxal sugaha Sacuudiga ee boodinka dhaxalka sugaya marka warbaahinta Sacuudiga oo warbaahinta dalka Turkiga kale waxay leedahay ragii weerarkaasi geystay ayaa kala tagay oo dhowr wadan u kala dhoofay 4 saacadood kadib markii ninkan wariyaha uu safaaradda galay gabadha uu guursan rabay ee la socotay ee banaanka qonsuliyadda ku sugaysay ayaa iyana hadashay waxay u sheegtay warbaahinta inay aaminsan tahay inuusan soo bixin inkastoo dowladda Sacuudiga ay andacoonayso wariyaha isagoo bad qaba inuu qonsuliyadda ka soo baxay gabadhan oo Hatiza Cengiz la yiraahdo oo Turkiga u dhalatay ayaa dalab u dirtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwadiisa oo ay tiri waa in gacan laga siiyaa sidii aan ku heli lahaa jacaylkaygii oo ay xukuumadda Sacuudiga iga dishay sida hadalka u dhigtay warbaahinta Sacuudiga ka sokow kuwa Turkiga waxay aad ugu doodayaan in wariyahaas la dilay kadibna meedkiisa laga qaaday dowladda Turkiga shalay waxay soo saartay waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay ama ay kalsooni ku qabi karto oo kaliya marka qonsuliyadda la baaro xukuumadda Sacuudiguna way ogolaatay in safa qonsuliyadda la baaro oo meedka laga raadiyo inkastoo muuqaalada qonsuliyadda naftigeeda ay soo duubtay ay ka muuqanayeen iyadoo qolalka oo dhan la furayo loona sheegay dadka inuusan jirin qof halkan lagu dilay ama qof jooga waliba si gaar qonsuliyadda wuxuu ku doodaysay waraaqihiisii in loo dhameeyay isla markaana la iska fasaxay wariyahan wuxuu ahaa wariye aad caan uga ah baraha bulshada si gaar ah boqortooyada Sacuudiga ayuu dhaliilo badan kaga qori jiray wuxuuna ku qori jiray wargeyska Washington Post ee yiraahdo ee Mareykanka soo baxa qaybtii uu maqaalada ku qori jiray ayaa la baneeyay wargeyskuna wuxuu leeyahay baaritaan hala sameeyo caalamka dowladaha ku yaala qaarkood aad ay arrintan isha ugu hayaan waxaana ku noqon doontaa fadeexad cad baa la leeyahay madaxda boqortooyada Sacuudiga haddii ay arrintan ku cadaato